Soomaaliday wax laydin carbinayaa laydin caawinayaa cilmi inaydin barataan oydaan noqon xawaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan, kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsamo channel oo aan idinka soo gudbiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta. haddii aad nagu cusub tahay subscribe taabo si aad uga mid noqoto waalidiinta iyo asxaabta nagu xidhan. haddii aad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay joogitaankaaga. gambaleelka furo si aad uga warhaysa hadba barnaamijka cusub ee kusoo biira barbaarsamo channel. siina sheer garee si uu u gaadho waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. markan iyo mowduuceen waxa uu noqonayaa barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee aynu ku eegaynay isbeddelka koritaanka caruurta iyo waxyaabaha lagu garan karo in uu koritaanka ilmahaasi sidii saxda ahaa u socdo. waxa aynu maraynay oo aynu hore u soo qaadanay ilmaha sanad jira ilaa markuu dhasho, ilmaha 2 jirka ah iyo weliba ka 3 jirka ah. markan iyo haatan waxaynu eegaynaa kuna soo qaadan doonaa barnaamijkeennan ilmaha 4 jirka ah iyo waxyaabaha lagu garto inuu koritaankiisu sidii saxda ahaa u socdo, hadday tahay dhinaca garaadka iyo maskaxda, dhinaca hadalka iyo maqalka iyo weliba aragga, dhinaca murqaha iyo socodka, iyo dhinaca isdhexgalka bulshada. ugu horreynba waxaynu ku eegaynaa dhinaca ciyaarta. dhinaca ciyaarta waxaa lagu gartaa ilmaha 4 jirka ah marka uu sidii saxda ahayd koritaankiisa u socdo in uu sameeyo sheekooyin fantasy ah ama mala-awaal ah, taasi oo uga sheekeeya dadka waaweyn iyo caruurta yaryar labadaba, isagoo isku dayaya ama la imanaya hal abuurnimo, isagoo raba in uu sheeko xidhiidh ah sida dadka waaweyn uga sheekeeyo. dhanka kale basalka bahalka yare loo yaqaano ama waxyaabaha caruurtu isku xidhxidhaan in uu kari karo inuu isku xidho, kaasoo u baahan inuu samro ilmuhu oo u fadhiisto meel inta uu isku xidhxidhaayo. in ay dhulka qodaan islamarkaana aad u jecel yihiin inay ciidda ku ciyaaraan kana dhisaan waxyaabo kala duwan ciidda dhexdeeda. waxa kale oo caruurta la arkaa 4 jirka ah marka koritaankoodu sida saxda ah u soconayo in ay waxyaabo badan tijaabiyaan oo markii hore 3 jirka ahaayeen aanay ku ciyaari jirin ama aanay aqooninba. dhanka kale marka ay ciyaarayaan caruurtan 4 jirka ahi waxa ay sameeyaan in ay waraaqaha si sax ah isugu dhadhajiyaan iyo waxyaabaha yaryar ee loogu talagalay in la jarjaro ama la isku dhajiyo. sidoo kale maqaska qabsashadiisa ama wax ku jaristiisa waa inay si sax ah ugu jari karaan, taasi oo hoos imanaysa dhinaca ciyaarta iyo weliba dhinaca garaadka oo aynu u iman doono. haddii aynu u nimaadno dhinaca hadalka, ilmaha 4 jirka ah waxaa lagu qiyaasaa in ay kari karaan 1,000 ilaa 1,500 oo kelmadood. ilmaha 4 jirka ah waa in uu sharaxi karo waxyaabihii maanta nolol maalmeedkiisii dhacay ama wixii uu ku ciyaaray, arkay iyo wixii la mid ah in uu si sax ah u sharaxi karo. sida oo kale waa in uu isku xidhi karo 3 ilaa 2 sentence. dhinaca kale waa in uu ilmahani si fiican u dhagaysan karo marka lala hadlayo, in marka uu hadlayo si sax ah loo fahmi karo ama hadalkiisu uu noqon karo mid waadix ah oo la fahmi karo. dhinaca maskaxda iyo garaadka, ilmaha 4 jirka ah waxaa la arkaa ama la sheegay
in maskaxdiisu marka ay si sax ah u korayso ama koritaanka maskaxdiisu si sax ah u socdo uu aad u jecel yahay waxyaabaha naturalka ama natuuga la yidhaahdo sida dhirta, xayawaanka, kaymaha iyo waxyaabaha ubaxyada iyo waxyaabaha dabiiciga ah. Inuu aad u xiiseeyo sheekooyinka xayawaanka iyo geedaha ku saabsan. Waa inuu tirada tirin karo ama yaqaano ilaa 10 siday isugu xigaan ee saxda ahna isugu toosin karo 1, 2, 3 ilaa 10. Sidoo kale waa inuu yaqaano guriga lambarkiisa ama adareyska uu degan yahay, laakiin taasi waxay ku xidhan tahay haddii loo sheego oo uu waalidku ka caawiyo inuu baro. Sidoo kale waxa uu ilmahaasi xilligaa loo baahan yahay inuu yaqaano lambarka telefoonka ee gurigooda ama ka hooyadii ama ka aabihii. Haddii wax la tuso waa inuu sidii loo tusay ee saxda ahayd ka daba samayn karo qofkii tusay, amaba si u dhow inuu isku dayayo inuu sidii saxda ahayd uga daba sameeyo qofkaasi. Inuu yaqaano calaamadaha sida wareegga, 3 geeska, 4 geeska iyo wixii la mida. Inuu si fiican u qeexi karo dhinaca midabada casaan, madow, cadaan, akhtar ama guruun iyo waxyaabahaas la midka ah inuu sida sax ah u qeexi karo ama u sheegi karo. Dhinaca dhaqaaqa iyo murqaha, ilmaha 4 jirka ah marka murqihiisu si sax ah u korayaan waxa lagu garan karaa ama ay tahay inuu sameeyo in uu tallaabada si sax ah u qaado oo u socon karo, in uu ka tallaabsan karo meelaha godadka ah, biyuhu ku yaalaan, biyuhu ku jiraan iyo waxyaabaha u baahan in laga tallaabsado uu si fiican uga dul tallaabsan karo. In haddii meel line ah oo liid ah sidaa loo jeexo lagu yidhaahdo ku dul soco, in uu si toos ah ugu dul socon karo oo aanu kolba dhinac u leexleexanin. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay koobka marka uu wax ku shubanayo inuu si sax ah ugu shubto ama inuu koob wax ku shuban karo si sax ah. Waxyaabahaasi waxaa lagu gartaa in ay murqihiisu ilmahaasi sidii saxda ahayd u korayaan ee loogu talagalay. Sidoo kale kaabadaha inuu keligii kori karo kana soo degi karo isagoo aan wax caawimo ah haba yaraatee u baahanin. Markan haddii aynu eegno dhinaca isdhexgalka bulshada iyo nolosha caadiga ah, ilmaha 4 jirka ahi waa inuu si sax ah dharkiisa u xidhan karo ama isagoon wax caawimo ah u baahnayn inuu dharkiisa keligii xidhan karo. Sidoo kale kabaha waa inuu keligii xidhan karo. Siibadda ama waxyaabaha lagu xidho ee suusadda loo yaqaano af Soomaaliga inkastoo noocyo badan ama waxyaabo badan oo kala duwan loo yaqaano, haddana waxaynu uga dan leenahay inuu jaakeetka uu xidhan yahay si sax ah u xidhi karo. Waxa kale oo la rabaa ilmahaasi ama lagu gartaa inuu si sax ah koritaankiisa xiriirka bulshada iyo nolosha caadiga ahi korayo, inuu kula dhigdhigi karo haddii miiska cunto aad dhigaysid oo kale uu kula dhigi karo. Inuu samayn karo malqacadaha, farageetada iyo weliba midida uu si fiican u qabsan yaqaano ama wax ugu jaran karo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay ilmahaasi inuu qallalan yahay oo aanu xidhnayn. Qallalan yahay waxaa laga wadaa in aanu wax xafaayad ah haba yaraatee xidhnayn. Ilmuhu marka uu 4 jir gaadho uuna yahay mid aan isku kaajin, suuligana sida saxda ah ee dadka waaweyniba u isticmaali kara. In uu samayn karo ama la hadli karo dadka kale isaga oo la rabo in uu weydiisto ama weydiisan kara waxa uu u baahan yahay. In uu samayn karo isdhexgal,
tusaale ahaan haddii uu tago xanaano oo kale loo baahan yahay in uu samayn karo ama meelaha lagu ciyaaro isdhexgal oo uu la ciyaari karo caruurta kale, in uu dadka waaweyn oo kale xataa wada shaqayn la samayn karo kuwa aan waalidkiisa ahayn sida jaarka, kuwa xanaanada jooga ama goobaha lagu ciyaaro lagu kulmo. intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee isbeddelka iyo waxyaabaha lagu garan karo inuu ilmahu sidii saxda ahayd koritaankiisu u socdo, inagoo ka eegaynay dhinacyada dareenka, isdhexgalka bulshada, maqalka, hadalka iyo weliba dhinacyo kale oo badan. haddii aad ka heshay like saar, siina sheer gare si uu u gaadho waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.